بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada darsigeena maanta waxaan weli ku guda jirnaa buuggii ahaa barashada luuqadda carabiga buugga saddexaad ama tacliimu luuqa alcarabiya kitaabkii saddexaad addarsu alxaadi cashara maanta waxaynu qaadanaynaa cashirka kow iyo tobnaad addarsu alxaadi cashara cashirka kow iyo tobnaad almaxaadatha cashirka wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi waxaa sheekaysanaya maahir iyo saabir baa sheekaysanaya maahir wuxuu yidhi maa huwa hadfuka yaa akhii maa huwa hadfuka yaa akhii xarafkan ama ereygan ku midabaysan midabka gaarka ah sida xarfaha noocan ah waa xarfa nagu cusub ee casharada hore aan kusoo marin wuxuu yidhi marka maa huwa hadfuka yaa akhii saabir baa wuxuu ku jawaabay uriidu an nataxaawar hal anta maahir am baliid hal anta maahir am baliid ana faahim ولست بليدا مثلك أنا فاهم ولست بليدا مثلك من أين تعلمت هذه اللغة من أين تعلمت هذه اللغة لا تدخل بين العصا ولحائها لا تدخل بين العصا ولحائها إذن اجلس على مقعدك إذن اجلس على مقعدك أنت أولى بالجلوس أنت أولى بالجلوس aynu isla eegno macnaha almaxaadatha wada sheekaysi almaxaadatha wada sheekaysi maa huwa hadfuka yaa akhii maa huwa waa maxay hadfuka ujeedkaaga yaa akhii walaalkayow maa huwa hadfuka yaa akhii waa maxay ujeedkaada walaalkayow uriidu waxaan doonayaa an nataxaawara inaan wada sheekaysanno uriidu waxaan doonayaa an nataxaawara inaan wada sheekaysanno hal anta maahir am baliid hal anta waxaa tahay adiga maahir qof fahmiyaa tahay oo wax fahmaya wax garanaya amase baliidun waxaa tahay damiin maahir waxaa la yidhaha qofka cleverka ama wax aad u yaqaana luuqadda ingiliishkana waxaa lagu yidhahdaa clever baliidna waa qofka damiinka waxba aanan aqoonin marka sideeda banaanba ardayga ama faahim buu noqonaya qof maahir ah oo wax fahmaya ama baliid buu noqonaya marka wuxuu yidhi hal anta adiga waxaa tahay maahir qof fahan miyaa tahay amase baliidun damiin baa tahay wuxuu yidhi aniga faahim waxaan ahay qof wax fahmaya walastu ma ihi baliidan damiin midlaka noocaaga oo kale ah walastu ma ihi baliidan damiin noocaada oo kale ah ma ihi aniga faahim waxaan ahay qof faahim ah wax fahmaya qof maahir baan ahay maahir iyo faahim waa isku micno walastu ma ihi baliidan damiin midlaka noocaaga oo kale ah min ayna tacalamta hadihi luuqa min ayna xageebaa tacalamta aad ka soo baratay haadihi luuqa luuqadan min ayna xageebaa tacalamta aad ka soo baratay haadihi luuqa luuqadan carabiga ah wuxuu yidhi laa tadkhul ha gelin bayna alcasa wa lixaa'iha alcasa waa ul lixaa'ihana waxaa waaye qolofka ama diirka dusha sare ka saaran marka wuxuu yidhi laa tadkhul ha gelin bayna alcasa ush iyo walixaa'iha diirkeeda ush iyo diirkeeda kala dhex gelin macnaha munaasab maaha macquulna maahan ul iyo diirkeeda maba la dhex geli kara marka say isugu dhegan yihiin camal waxa isugu dhegan baad dhex geli rabtaa wey macnaha boos aanan ku qaadin baad ciriirsanaysaa wey marka wuxuu yidhi laa tadkhul ha gelin bayna alcasa ush iyo walixaa'iha diirkeeda ha kala dhex gelin idan haddaba ijlis fadhiisa calaa maqcadika booskaaga fadhiisa ijlis fadhiisa calaa maqcadika booskaaga wuxuu yidhi anta adiga ayaa awlaa mudan biljuluusi fadhi anta adiga ayaa awlaa mudan biljuluusi fadhi macnaha adiga ayaa fadhi ku habboon ee fadhiiso mar labaad baanu ku celinayna casharka addarsu alxaadi cashara casharka kow iyo tobnaad almaxaadatha wada sheekaysi maa huwa hadfuka yaa akhii walaalkayow waa maxay ujeedkaaga maa huwa hadfuka yaa akhii walaalkayow waa maxay ujeedkaaga uriidu an nataxaawara waxaan doonayaa wada sheekaysi uriidu an nataxaawara waxaan doonayaa inaan wada sheekaysano hal anta maahir waxaa tahay qof wax fahmaya amase baliidun damiin baa tahay hal anta waxaa tahay maahir qof wax yaqaana miyaa tahay amase baliidun damiin baa tahay anigu faahim qof wax garanaya baan ahay walastu mahi baliidan damiin midlaka noocaaga oo kale ah min ayna tacalamta hadihi luuqa luuqadan xagee ka soo baratay min ayna xageebaa tacalamtaad ka soo baratay hadihi luuqa luuqadan laa tadkhul hakala dhex gelin bayna alcasa ush iyo walixaa'iha diirkeega
idan haddaba ijlis fadhiisa calaa maqcadika booskaaga fadhiisa anta awlaa biljuluus adiga ayaa mudan fadhiga anta awlaa biljuluus fadhiga adig ayaa mudan cashirkeena maanta intaa inoo joogo intaan kulmi doono cashirkana kan xiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu